محمود حسن محمود waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata Puntland haddii aan ka aragti dhibto hadalkii ka soo yeeray wasiir Goodax waxaan qabaa waxa weeye mowqif mid ah iyo maan midaysan baa midnimo lagu gaaraa waxaan qabaa ardayda Puntland wax ka barata 12 sanana wax baranaysay haddii shahaadadii loo diido inay tahay mustaqbal xumo ardaydaasna mustaqbalkooda halka ay ku baaba'ayso waxaan qabaa in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Puntland ba inay isku tagaan ay wada shaqeyn aad u dhaxmarto si mustaqbalka dhalinyarada ay u hagaagto magacaygu waa Saxardiid Axmed Duux oo jooga magaalada Garowe aad waxa ugu xubnahay hadalka soo yeeray Goodax Barre ahayd shahaadada in ay Puntland in la siiyo aysan haboonayn taasoo aragno arrin khaldan maadaama ay Puntland tahay hooyadii Soomaaliya Goodax Barrena shalay uu ninkii isagu dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Puntland ay dhashay marka hadalka hadal ay Puntland ka istaasho oo ka mutaysata maaha waa hadal aad u qalafsan oo labada shacab iska horkeenay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland marka maslaxada ummadda Soomaaliyeed kama shaqeynay Goodax wuxuu ka shaqeynayaa maslaxada ummadda inuu baabi'iyo Puntland iyo Somaliland iska horkeeno Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto magacaygu waa Mawlid Jaamac waxaan ahay dhalinyarada ku nool magaalada Garowe waxaan dhageystay hadal uu ka jeediyay BBC-da wasiir Goodax Barre runtii aad iyo aad wax looga xumaado hadalkaas kaasoo ahaa inaan ummadda reer Puntland wax baratay aysan haba yaraatee waxa aqoonsi shahaado aysan ka helayn dawladda federaalka runtii waxa weeyaan ay shucuurteeda maanta lama soo koobi karo aad baan uga xunnahay maadaama aanu dadkii dhalinyarada ahaa ee wadanka wax u baranayay in waxa weeyaan sidaa noola hadlo wasiirku dhowr jeer arrimaha Puntland oo saas kale uga hadlay waanu cambaaraynaa waxaan leenahay wasiir anagu Soomaali baan nahay xaq baa u leenahay shahaadadana waanu qaadanaynaa waxaan filayaa in taas waxa weeyaan adigu karaamadaada ku seegtay insha Allah alxamdulillah rabbil alamin anigu oo magacaygu yahay Cabdinuur Cabdulaahi oo waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintii wasiirka waxbarashada oo xalay ka hadlay oo uu yiri hasku tashado Puntland hadaysan ka qayb galayn maxaan ku dhahaa aysan qaadanayn manhajta waxaan ka xumahay hadalkaasna waa in ay dawladdu go'aan ka wada qaadataa wasiirka waxay la tahay waa laga sareeyaa oo xukuumaddu ka tirsan yahay haddii ay xukuumaddu ku raacsan tahayna waa inay sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa inay iyaguna ama ayidaan ama ay hadal ay ka hadlaan oo dhahaan arrinta anagu wasiirka gaar u tahay ardada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waa isku mid manhaj ma kala laha maxaan ku dhahaa waana isku mid waxaana aad uga xumahay marka hadal ka soo yeelay wasiirka waxbarashada inuu hadalka dib uga noqdo oo la tashado xukuumadda oo ay si fiican uga maradhaliya uga hadlaan arrinta waxbarashada aysan kala qoqobin ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa isku mid marka arrintaasna anigu waxaan dhihi lahaa wada tashi laga galo ama Puntland ha noqoto ama dawladda federaalka ha noqoto ama waa in si la isku noqdaa oo hadal maxaan ku dhahaa meel wanaagsan la sameeyay dhigaa saas aan u dhahayaa arrintan aad ka hadlaysaan markaan anigu aan fikirkeyga aan ka cabiro oo hadda dawladda federaalka lagu adeeyo waxaan aaminsanahay inagu inaan mas'uul ka nahay dhibaatadeena inagu aynu keenay dawladda federaalkana waa dawladeena wasaaradda waxbarashada iyo inaga inaan isku xirnahay baa la rabay in manhajkan wax ku dhiganayno meel uu ka yimid cilmi mid lama yaqaan in wax laga bedelo manhajada dhacay baa la inoo dhigayaa in wax laga bedelo la kontaroolo iskuulada nin walba biil buu furto masaariif buu furto iskuulka waxtar kale oo ardaydu soo baxayso iyo midka aysan soo baxayn ardaydu ay hoosayso in la kala ogaado inaga qaladka iskale isku xirnaan baa loo baahan yahay isku xirnaantii baynu diinay waxbarashada dawladda iyo wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya aynu diinay inaga gaar isku xirnay iyo baan ku haynaa meel kasta